kulan toddobaadii ugu dambeeyay uga socday xafiiska maamulka gobolka Togdheer Gudida Wanaag Farista iyo sidoo kale Gudida nabadgelyada gobolka Togdheer xafiiska ay ku leeyihiin magaalada Burco ayaa wuxuu ku soo dhamaaday afgarad sida uu noo sheegay gudoomiyaha Gudida Wanaag Farista iyo xubnaha reebista ee gobolka Togdheer kaasi oo ahaa dardargelinta iyo ka shaqaynta gudidani horena uga jirtay xafiisyada ku lahayd maamulka gobolka Togdheer waa kan gudoomiyaha Gudida Wanaag Farista iyo xubnaha reebista Dr. Raage oo arrimahaasi ka hadlaya hay'adda Wanaag Farista iyo xubnaha reebista gobolka Togdheer iyo maamulka gobolka Togdheer oo wada shiriyay baa wixii ka wada shiriyayna way isla garteen waan isku waafaqeen in marka gobol ahaan loo hawl galo hay'adda iyo maamulkuna isku xidhnaadaan wax talaabo ka soo la qaadayna laga wada socdo sidaas markaa la isla qaatay meel wanaagsan way noo maraysaa jira waxa farsamooyina oo aan ka sugayno qodob maamulka kaana iyaga sabtidan balansan gudoomiye waxa jira hore waxa soo dhawaa imka xabsideen iyo dardargelinta maxay muujinaysaa waxa jiray si ay ogaataan qolo waftiya oo ka socota hay'adda guud ee Wanaag Farista iyo xubnaha reebista Hargeysa ka soo baxday oo Boorama soo martay oo Berbera soo martay Hargeysa oo halkeenan inuu dhaaftay oo laascaan oo tagtay markaa aynaba oo tagtay meesha la yiraahdo Sanaag xalay Sanaag ba soo guureen 9 habeenimo qoladaasina inuu weynala joogeen waa is afkaranay dhamaanteed saasaan ku dhamaysan waxa jira khilaaf ma jirin is afkaran waabay ahayd lagu degdegay taana waa dhamaysanay horena wada hadlay maamulka gobolkan ku dhameeyay maalintii hore imikana hawl qabadkiin baan doonay inaan qabano insha Allah Maxamed Abdi badda 24 TV magaalada Burco